هم دمانتي وسلامتين فيصل وينو يمد مرتين وينو تمد انجينير فيصل عبد الرب سودو وينيا نور ولا الودو هاي أنا واقف سلامي أديكي وأصحابتا أو دم بجدي بواد السلام. واي هذا سلامت هاي أصحابتنا دمان وسلام الناس سودو وادن لنا هاي انجينير لبض قضب بين سكو قبناي وان شعل هاي إن لبض ساعدود عن دول استاجنو وبوقشة رئيس الوزراء حمزة مقالة تشيا يسوع كله ها يسوع ميكروفون كاجي iyo sidoo kale dagaalka waqooyiga Ethiopia waxaan jeclahay labada topic oo isna saaran kalena socda inaynu ka hadalno kalena socda waxaan ula jeedaa in saacada hore aynu hal qodob ka hadalno saacada kale markay gaartana aan halka qodob ay kala ka hadalno inta marka saacada hore lagu jiro qodobka laga hadlay qodob aan ahayn waxaan ka codsanayaa ama maaragtay aan u sheegayaa dadka halkan ku jira in markaasi aysan u gudbin ama aynu u tallaabin qodobka kale qodobka markaas aan dul taagannahay in lagu ekaado si ayna isdhaxyaac inooga noqonin oo loo kala garto waxaan ka hadlayno marka waxaan jeclahay dagaalka waqooyiga Ethiopia inaan ku horeyno 11 bariga Afrika markay ku dhacdo aan idhaahdo 10 bariga Afrika markay ku dhacdana waxaa u gudbaynaa qodobka labaad ee booqashada ra'iisul wasaaraha engineer sidaas kugu kala cadaato adigana qodobkan hore saacadan hore ayaan jeclahay inaynu dul istaagno arrinta dagaalka waqooyiga Ethiopia oo aad moodo labadii sano in hadda ay maalmo kooban ka harsan tahay xilligii uu bilowday marka la fiiriyo mar dhaxdeed waa yara istaagay haddana waxaad moodaa dagaalkii mar kale isagoo sidii hore ka xog badan ayuu dib u qarxay maxaad nagala wadaagi kartaa dagaalkan iyo waxa xog laga hayo iyo meesha haatan loo socday labada dhinac ee dagaalamaya u socdaan soo dhawow dhowr iyo 20 daqiiqo horaan ku siiyo kadibna waxa u galeynaa su'aalaha iyo wixii la xiriira صح. بسم الله الرحمن الرحيم. runtii gidigin waa idin wada salaamaya aad baan u jeclaystay sidaad u kala qaaday labada qodob because aniga qodaydu waa sidii niyadda ku hayay marka salaanta kadib qodobka ugu horeeya ee ah xaaladda dagaalka gobolka Tigray iyo Ethiopia runtii hadda lama oran karaba waa xaaladda Tigray iyo Ethiopia laakiin waa dagaal runtii saddex geesooda ama laba wadan oo ictiraaf adduun leh Eritrea iyo Ethiopia ay dagaal ka wadaan ama dagaal kula jiraan gobol ka mid ah Ethiopia Tigray waa dad Tigray speakers sida dadka inta badan ay u yaqaanaan oo Tigray ku hadla iyagii Eritrea waa isku dad waana isku af laakiin haddana xagga kale amxaarada ayay xagga diinta isaga badan yihiin Tigray iyo injineer aan ka dhex galo codkaaga waxaa shuuq badan baa ku jirta xariga dhigaha haddii aad ka maarmi karto way fiican lahayd iska bixiso waan ka maarmi karaa haddaad hadda si fiican ay maqasho si fiican baan ku bas si fiican baan ku maqlaa bas waan ka saaray marka dadka horta waxa dagaalku ka socdaa uun maanta aynu oran karnaa wixii aynu u naqaanay gobolladii Abyssinia oo markii horena taariikhda wadaagi jiray haddana waxyaabo badan ka dhaxeeya saad ku sheegtay 2 sano ka hor watii uu xoogga Ethiopia oo isla markaana adeegsanaya Eritrea ay galeen Maqale xukunna ku soo rogeen dawlad ku meel gaarana u sameeyeen gobolka Maqale sida gobollada kale Ethiopia laakiin waa laga saaray sheekada waad ka wada diragsantihiin dagaalkan hadda waa wajigii saddexaad wajiga hore wakii laga soo saaray oo haddana Tigray soo laba kacleeyeen oo Adsaabe u soo jirsadeen wax 100 kilomitir ku dhow oo meelaha looga qada tago Adsaabe weekinka maalmaha Sabtida iyo Axad ay soo gaareen haddana wakii dib ay u gurteen maantana wajigii saddexaad dib ay u gurteen waxa dardar weyn geliyay dagaalkooda xoogaga Ethiopia iyo Eritrea qabsaday meelo muhiim ah sida Shire Shiraro Alamanta Waja iyo haddana dagaal ka socdo webiga Takaze oo meel istiraatiijiyada ahna meeshii markuu dagaalkan hadda wajigan saddexaad u bilaabmay askarta ugu badan ee dhinaca Ethiopia lagu laayay
waa dagaal kharaadh runtii waxaa meesha ka socda. ilaahay ummaddeena ka badbaadiyee kolba tirada ugu dambaysa ee hadda la sheegaya haddii la isku daro shacab wax ku dhintay gaajo iyo macluul iyo dagaal askar wax ku dhintay haddaadan kala qaadin waxay ku dhowdahay inta walba formulo hadda lagu isticmaalay dadka sahamiya dagaalka 600 ilaa 800 oo kun inta u dhaxaysa. It never happened in African history. dagaal noocaasi Afrika weli kama dhicin. aagga dagaalku ka dhacayaana waa dhul kooban oo sida dhulkeena aan ahayn. haddii aad soo qaadato xadka uu Tigray la leeyahay Eritrea iyo kan uu la leeyahay Amxaarada wax aan 300 oo kiiloomitir ka badnayn wey. marka waxaad ka qiyaastaa marka xagga Tigrayga marka xagga Asmara ee Eritrea laga soo weeraro halkana laga soo weeraro inta shacabku degan yihiin oo Shire ilaa Maqale ilaa Alamaita u dhow inta isku jirta dhulka baaxadda leh waa wax 200 oo kiiloomitir buuraley iyo bannaan bay isugu jira. marka dagaalka aaladaha ugu dambeeya ee droonka oo kuwan Turkiga la adeegsanayo Ethiopia oo weligeed bacaan ku ahayd xagga cirka marka Afrika laga reebo Egypt, Masar iyo Koonfur Afrika. waxaan u maleynayaa in Ethiopia number 1 ahayd xagga diyaaradaha iyo dagaalka cirka iyadoo la adeegsanayo 3 diyaaradood oo isku jira oo ah Mirajkii Faransiisku siiyey, miigii 23 baan u maleynayaa Ruushku siiyey iyo F-15 oo Mareykanku sameeyo oo dalalka farkutiriska ah ay Ethiopia ka mid tahay inay haystaan. iyo wixii de Eritrea ay haysatay oo xagga tankiyada T-54 lagu dagaalamayo waa horta 200 oo kiiloomitir ballac aan ahayn dagaalku ka socda. dagaalkani waa dagaal aynaan weli ku arag Afrika. askarta ka qaybgalaysa marka aad saddexda dhinac isku geyso oo ah dhinaca Ethiopia oo weji badana ciidamada Ethiopia xooga dalka, Amxaarada maleeshiyada oo Fano leh, Liu Bilayski Amxaarada leh, maleeshiya hadda aad looga keeno Gojaam iyo meelahaas leh, iyo ciidamadii Eritrea oo dhinaca iyo TPLF TADF ciidamadeeda oo dhinaca walba. aagga dagaalka maantada aynu joogno waxa ku jira dhufaysyada 1 milyan oo askari waxaan ka yarayn sidaad rabta u kala qaad 1 milyan oo askari unprecedented waa waxaan weli Afrika lagu arag. waana wax runtii xataa dagaalka Ruushka iyo Ukraine cadad ahaan aad uga ballaaran. sidaad aad ka warqabtaan dagaalka Ukraine oo adduunkoo dhani afka ku hayo habeen iyo maalin jariiradaha iyo wargeyska adduunkoo reer galbeedkoo dhanna saacad uga warramo waxaa lagu qiyaasayaa dhimashada 6,000 ilaa 10,000 oo isugu jira wax bam ku dhintay, wax askar ku dhintay iyo wax si kale ku dhintay. xaggan Ethiopia iyo Tigray iyo Eritrea waxaynu ka hadlaynaa dad gaadhaya 600,000 ilaa 800,000 oo dad madow ah. taa qofku markaa sida uu u micnaysanayo isagay jirtaa laakiin kollaba waa laba gacmoodin ama si degdeg dadka adduunka ee awoodda leh ama ha noqoto Mareykanka ama ha noqoto reer galbeedka culays degdega oy meeshay fadhiyaan ka kacaan dadkaas maatidana badbaadiyaan dhinacay dooni ha noqoto dagaalku saameeyey Amxaaro, Tigray, Anfar iyo hadda Eritrea wax u soo gurmanaya male. waxyeelada dagaalkani wuxuuna saameynayaa oo kale gobolada ka fog ama ha ku keeno khasaare dhaqaale Ethiopia oo dhan ama si kale ha ku keeno laakiin dhibaatooyinka maanta Ethiopia oo dhan ka dhacaya dagaalku waa wax bukiyay. sidee ay wararku hadda sheegayaanna hujuumo badan ayaa huwanta Ethiopia ay wadaan oo ku aadan ilaa Aksum, Kordad iyo meelo badan oo magaalooyin. laakiin weli intii Shire iyo Aksum u dhaxaysay dhaqdhaqaaqa ciidamada dowladda Ethiopia iyo Eritrea weli aad uma socdo. maxaa waxaan keenay 3 usbuuc 4 usbuuc ka horow watii Tigraygu haysteen qobo iyo meelo wallo ka tirsan oo dhulka Amxaarada ka tirsan. maxaa arrintan keenay 20 beri muddo hadda aynu ka joogno
baa ninka la yidhaahdo Alex Diwal oo saaxiib dhow la ah maamulka ka taliya gobolka Tigray muddo dheerna ay saaxiib ahaayeen prime ministerkii hore ee Meles Zenawi iyo General Zarkan. aniguna Alex aan aad u aqaano maadaama uu Soomaali oo dhan ninkaasi seedi u yahay, gabar Soomaaliyeed uu qabo. dhowr jeerna gurigiisa aan tegey. baa 20 beri muddo aan ka badnayn khudbad ka jeediyey macadka la yidhaahdo British Royal United Services Institute Rusi, isagoo markaa warar sugan haya. warkaasina wuxuu daba socday khudbaddii uu General Zarga u jeediyey diblomaasiyiin badan oo Washington degan iyo journalisto muhiim ah oo gacan lagu soo xulay oo Zoomka uu kula shiray. warkaas Zargan kan markaad ku taxdo Alex Diwal uu institute-kan aan sheegay uu ka jeediyey 20 beri ka hor, waxa uu Alex Diwal si cad u sheegay in ay gidi ahaanba furinta ciidamada Tigreega ee degan Shiraaro iyo Shire ay dumi doonaan, dib u gurashana ay samayn doonaan. anigu arrintaa waan ogaa, waanan maqlay, hoosna waa ula socday. maxaa keenay arrintaa weyn? I think waxa keenay bay ahayd dadku siyaabo badan. qaar baa waxay yidhaahdeen waxa lagu beer la xawsanayaa reer galbeedka in laga soo gaadho, laakiin muhiimaddu waxay ahayd kow in saadkii xabaddu uu aad isku soo gabay xagga ciidamada TDF-ta, because dagaal khadhaadh ayaa bil 50 beri aan istaagin oo xabaddu sida saloolka samada ay uga da'aysay labada dhinacba, iyagoo Eritreanku isticmaalaya hawser iyo tankiyada waxa ka dhaca, kuwana wax la mid ah, laakiin inta badan xabadda sida saloolka la isugu riday. taasi kow bay ahayd. marka in la ogaaday in dagaalkan caadiga ah ee foolka ah sidii berigii horeba aanay muddo dheer sii wadi karin TDF-tu ama ciidamada Tigray. tan labaad, in TDF-tu ay goosatay mar hadduu dagaalku heerkaa gaadhay, muddo ay qiimaysay in lagu dagaalamo iyo inaan lagu dagaalamin magaalooyinkeeda, gaar ahaan Shire haddii lagu dagaalamana Aksum iyo Gordadna ay noqon karto, oo meelo badan oo shacab ku nool yihiin 100,000 iyo wax ka badan. taasna ay ka doorbideen in aanay ku dagaalamin, si orderly ana wixii kaga dhintay labada dhinacba dagaalada wixii intaa ka baxsan in ay isku dayaan in ay ka baxaan meesha, dee dhaawacooduna uu kollaba gaadhay. marka meesha faraha laga gubtay taariikh ahaan Ethiopia haddii ay noqoto dagaalka foolka fool way aad bay uga xoog badan tahay. laba arrimood oo la isku keeni garab dhigi karana maaha. marka Eritrea aad kusoo dartana waaba kasii daran tahay, laakiin markay noqoto is-ugaarsi iyo isku buuragal, taasna Tigreega qoladaas ayaa kollaba ku adag sida hadda taariikhdoodu noo sheegayso. waxa keliya oo meesha ka cad laba arrimood. kow, in weligood ilaa 1972 markii ay jabhadda bilaabeen qoladan Tigreega aanay weligood magaalo ku dagaalamin, magaalooyinkana ay aad uga taxadiraan. malaha waxaan siri waxay isleeyihin dadkan already gaajoonaya, haddii dad badan ay ku dhintaan magaalooyinka in dadku ay ka yaacayaan. taasi waa kow. ta labaad, dagaalkan hadda bilaabmay oo Ethiopiaanka iyo Eritrean ku gacan sareeyaan in uu bilow yahay, laakiin aanu dhammaadahay. meel uu ku dhammaan hadda ma garanayno, laakiin waxaynu ognahay in dhinac xoog ku leeyahay. maqale ma geli doonaan 20 beri ee soo socda, aniga ilama aha, because haddii Shire iyo inta u dhaxaysa xadka Eritrea oo dhowr iyo 20 kilomitir aan ka badnayn ay ku qaadatay 2 bilood, Shire iyo Aksumna waqti dheer bay ku qaadan kartaa, marka buuraha lasii tagana waqti dheer. dhulkani sidaynu moodayna maaha. iminka Abala oo xadka Anfarta iyo Tigreega ku taala, maqale oo magaalada xarunta u ah Tigre, waxay isku jiraan wax lagu qiyaaso 48 kilometers. waa in looga lugeyn karo, haddana meeshii wax badan kama socdaan. marka waxaad garanaysaa labada dhinacba dagaalka ay wadaan in uu aad iyo aad taxadir u leeyahay,
in marka xabadi dhacdo within a short distance ay dad badan iyo maati badan iyo askar badan labada dhinacba kaga dhimanayaan, khasaare weyn kaga soo gaarayaan. That's why socdaalka iyo guurguurashada labada dhinacba uu aad u culus yahay. Marka waxaan isleeyahay anigu halkaasaan ku joojin doonaa si su-aalaha qaybtan aan u qabto, in dagaalkii hadda uu bilow yahay, 2020 uu sideedii oo kale ay dowladda Ethiopia ku gacan sarreyso, laakiin marka la qiimeynayo in la qiimeeyo saddexdaa weji aynu soo sheegnay, oo saddexda weji intaba lagu tilmaami karo kolba qolo inay ku gacan sarreyso. waxase aan anigu isleeyahay Faysal ahaan aanan ka shakisanahay laba arrimood inay dhacayaan. Kow, waxay ilaa maanta Ethiopia diidanayd inay dhacayso, oo ah iyadoo dhul badan oo magaalooyina qabsatay in ay ogolaato wada hadal si ay u yeelato waxa la yidhaahdo bargaining chip, ama ku dootan ay ku dootanto oo tiraahdo magaalooyinkaasaanu haysanaa, shacbigii baanu quudinaynaa, therefore qoladan argagixisada ay u bixisay waxaa laga qabto. saa dood mina miiska la tagto, kuwaasi aanay ka yeelayn. midda labaad oo ah muddada yaree gaaban ay haysato dhowrka magaalo, in ay tusto shacabka Tigreega inaanay dowladda Ethiopia la colahayn, laakiin ay si xoogan u quudin doonto, oo durba duwayaashii iyo wixii isku xidhnaa oo raashinka waday baa soo galay waaja iyo alamaada iyo meelaha ay hadda kolba qabsadeen. Totally markaad isku soo geyso, dagaalku wuu socdaa, wax weyn oo hadda la qabsadayna ma jiro, laakiin Ethiopia waxay indhahan ku haysaa air strips ama meelaha diyaaraduhu kusoo degayaan, magaalooyin ha noqdaan, tuulooyin ha noqdaan, inay meelaha qabsato, in markaa raashina ay keento, ciidamadana ay halkaa kusoo daadgurayso. laakiin hadhow dee waynu eegi doonaa bal sida uu arrimuhu u kala baxaan. waa arrimo cakaran waxa meesha ka socda, ilahayna ummadeenna ha ka madaayo. waa mahadsan tahay injineer, aad baa mahadsan tahay. marka laga yimaado xaaladahaas aad kasoo sheekayso o dhan, dhinaca wada hadallada marka la yidhaahdo midowda Africa, wada hadal koonfur Africa dhacay waa kay ku baaqeen, labada dhinacba inay aqbaleen baa markii hore u muuqatay, haddana gadaal isa seeg baa dhacay kale. xaggee arrintaasi iyadu ay iska qaban laadahay waa isleedahay? arrintaasi shax bay ahayd, fool xun, markii dambena la ogaaday aadna Ethiopia ay ku ceebowday. nuuro waxa samaysmay wax uu u bixiyey Ridwan Hussein ninka la yidhaahdo, oo gacan yaro waa dowladda PPda Abiy iyo Shuro Club, macnihii xulifadii shuurada. Shuro waa wadada amxaaradu ay cunto. waxaa galab kasta isugu yimaada shir hoos ahaaneed Ridwan Hussein, nin Musa Kafi iyo Obasanjo, oo arrimahan qaadaa dhiga. xaq bayna u leeyihiin inay qaadaa dhigaan, laakiin arrimihii baanay xad siin. marka arrimahay qaadaa dhigeen, draft gareeyeen, qoreenna waxaa ka mid ahaa warqaddii macsuumadda, ayagoon la tashan Uhuru, ayagoon la tashan madaxweynihii hore ee South Africa, ayagoon la tashan xulifadii kale ee maalgelinaysay ama la socotay sida Mike Hammer, oo isagu kaba sii horreeyey dadka oo Nairobi joogay marka warqaddan la qorayo. warqadda saddexdaas kooxood ayaa soo diyaariyey, xataa kuwa Tigreega lama ogeysiin. shuruucda reconciliation iyo wada hadallada dowladaha iyo dadka ishayaana waxaa kow ka ah in loo siman yahay dejinta ajendaha iyo macsuumaddu sida u dhacayso iyo waxa lagu wada hadlayo. marka warqaddii uu Uhuru qoray eed arkaysay waa mar sheekada uu ogaaday, aadna uu xanaaqay. xataa haddii ay iska ahaan lahayd un khalad si aan loogu talagelin u dhacay, waxbaa laga qaban kar lahaa. shirkaas South Africa dib baa loo dhigi lahaa. waxa completely miiskaba looga tuuray waxa weeye khaa'innimadii ay wadeen Ridwan Hussein oo Ethiopia ka wakiila, iyo Obasanjo oo hadda runtii aad u ceeboobay, aan lana garanayn sida uu wada hadallada usii wadi doono, iyo Muse oo isna runtii aad looga biyadiiday arrintaas u dhacday, baa arrintaas fashilisay. shirkaas wejigaasna meesha uu ka baxay. wixii hadda dib uun loo soo yegleeli doono ma garan doono. rajadu marka maxay noqon kartaa haddii hadda waxaad moodaa dagaaladan socda marka la qiimeeyo
Ethiopia waxay u muuqataa inay tabar badan isbidaysa hadda oo tii hore ka badan. TPLF dhinaceeda iyadu marar waxay sheegaysaa inay diyaar tahay, mararna waxay sheegaysaa inay maaragtay dagaalka wadayso. hadda sida wax u dhacayaan marka la qiimeeyo rajo intee lag baa laga qabi karaa in ay suuragal noqoto in wadahadal la isugu yimaado. waxaynu ogaan doonaa jimcaha marka waad ogtahay for the first time markii ugu horreysay ayay saddexda dal ee Afrika ee ka tirsan golaha amniga oo Kenya iyo Gabon iyo Ghana ay isku raaceen in qadiyadda Ethiopia Tigreega miiska la saaro. waa markii ugu horreysay Ethiopiana markiiba arrintaa way aqbashay. waxaynaan garan karay sidaad sheegtay Tigreegu mar kasta xataa iyagoo ogaa in khaladaad ku jiraan xabad joojinta iyo wadahadallada way ogolaayeen because gacanta hoose ayay haystaan. macnihii they have the lower hand hadda iyagoo aad u og in adduunku Ethiopia la safan yahay maadaama dee dal xora oo dalkiile ay tahay had iyo jeer jabhad iyo fallaago qolo lagu tilmaamayo waa laga sadroon yahay. laakiin waxay Ethiopia la iman doonto ogolaanshahan ay hadda ka ogolaatay Afrika manayna sida dadka walba diblomaasiyadda faaleeya Ethiopia ma ay ogolaateen ama umay fasaxdeen saddexdaa dal ee ka tirsan amniga inay okay tiraahdo inay yiraahdaan arrinta qadiyadda Ethiopia hala keeno. may suurowdeen waxa jacad in Ethiopia arrintaa ogoshay. haddii ogoshay wax weyn maxay ku daba wadataa miiska maxay la iman doontaa kollaba waxyaabo Ethiopia is leedahay waad ku najaxaysaa ayay la iman doontaa. taasina waxa dhici karta inay wada hadallada wiiqiso labada dhinac gaar ahaan dhinaca Ethiopia diyaaru ma aha wada hadallo xabadda inta lagu joojiyo Tigray iyo lagu heshiisiin karo Ethiopia. sababta wada heshiisiintu waxyaabo badan bay hadhow albaabka u furi doontaa oo ah yaa loo raacaa dunuubtii ummadda ku dhacday labada dhinacba. taasna waxaan u malaynayaa dhinacaadii diyaaru ma aha. human right issues iyo crimes against the humanity iyo war crimes ayaa soo galay wada heshiisiinta. marka Ethiopia waxay isku dayi doontaa si ay ku gacan sarreyso oo Tigreega la yidhaha madaxdoodu meesha ha ka baxaan ha ka tagaan dibna ha loo soo yagleelo dowlad goboleed kuwa kale la mid ah. taasna runtii u malayn maayo in qolada Tigreegu yeelayso. marka hadda ma hubno mana aragno formulo cad oo labada dhinac ku heshiinayaan haddaanay ka ahayn in reer galbeedku hoosta waxay uga sheegaan oo yidhaahdaan sidii reer galkacyeedka xalay dhalay miyaa la oran jiray wax kasta oo dunuub ah oo dhacday xalay dhalay ha laga dhigo ha la dhaafo dibna ha la isku soo noqdo muddo isbarasho iyo slow process ama healing process ha la galo. taa waxaan ahayn weli ma hubno. waa hagaag waay aad baa umahadsan tahay injineere. dadkaynu siinaynaa fursadooda si maaragtay iyagana ay bal wixii su-aale ay qabaan iyo ra'yigooda aanu dhegaysano. saddex qof baan isu raacinayaa su-aalaha haddii aad laydmo marka nood garayso injineer haddii qalin iyo buug aad heli karto. suugaan soo qaata qalin iyo buug 1 minute soo qaado. waay ustaad geelle soo dhow. waad mahadsantihiin aad baan idin salaamayaa. waxoogaa codkayguna xidhan yahay. faysal aad baan kuu salaamayaa. injineere laba su-aalood baan weydiin lahaa faysal oo analysiskiisu oo cilmi ahaan uu ka soo fulo meel dheer. su-aasha ugu horeysa waxa weeyaan western worldku Maraykanka iyo Yurub ma loo maleeyaa sida wax u socdaan inay sugayaan in lagu kala adkaado number 1. number 2 haddii ay dhacdaba dagaalkan Ethiopia inay ku guuleysato consequenceska ay ku yeelanayso geopoliticska siiba western worldka iyo China iyo qadiyadaha southern nationalitiska Ethiopia oo isku qadiyada ah iyo Ethiopia badankeedaba
kolka in reference to barnaamijkii midamare la fulinayay loo guurayay Ethiopian Andinet arrimahaas maxaad u malaynaysaa long term consequence-ka iyo Soomaaliyaba waad mahadsantahay waa hadal waa arrin dheer aad baan ku waa mahadsantahay waay aad waa mahadsantahay cabdullaahi soo dhawaran cabdullaahi rob waa mahadsantahay walaal waxaan weydiin lahaa engineer Faisal waxaan weydiin lahaa Ethiopia dagaalkani kulli ugu dambeynta waxaan is leeyahay wuxuu ku dhamaan doonaa negotiation iyo wada hadal negotiationka Soomaalidu ama kililka Soomaalidu sidee u saameyn doonaa mana u diyaarsan yihiin inay kaalintooda qaataan waa mahadsan aad baa mahadsantahay cabdullaahi ustaad labada saddex su'aal ku soo dhawow laba geelle iyo midda cabdullaahi rob صح aad baan u maqlay labadaba waana qortay geelle waad mahadsantahay saaxiib aad baan kaaga mahad celinayaa ta ugu horeysa maxay adduunku ka sugayaan arrintan adduunku se diyaar ma u yahay in arrintan ay wax ka qabtaan se loo malaynayaa in lagu kala adkaado Ethiopia I don't think adduunku hadda waxay convinced ku yihiin 2 sano iyo dheeraad markay arrintan ay deedeynayeen in aanay cidi ku kala adkaanayn in aanay Ethiopia ku adkaanayn Tigray waxyeelada badan hadda isticmaali doonaan way caddahay anigu waxaan ku tilmaamay maalin dhoweyto arrintan in reer galbeedku keliya